kuba bilowgiisii hore la socda awade barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland la balladhiyay waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoon-yahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada boqolkiiba boqol bugayo qalin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال كسر دوّد برنامج كحساب بدنا ترتك على بورك التكنولوجيا ده سنة كلا بدو كونيو كوبي لباتن ترتكن أمر يمل أدو حساب بدن إسلام كاسنا وقت جل جاري وقت كي لوجد بلها ورجي صدحات أو ماشى وجه حساسن كوكلا بحدونان لليرتها على بورك كسر كلا بحي إسلام كاسنا كسر كلا جوليستي جروبي دي كلا دونا قيبي هور برنامج كا waxa barnaamijkan qaybta saddexaad ama wajiga saddexaad lagu soo bandhigi doonaa si itus oo itaabsi ah in loo soo bandhigo waxyaabihii ay sameeyeen isla markaasina ay hal-abuureen aqoon-yahanka kala duwan ee ka qayb qaadanaya barnaamijka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland bani aadam kuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la balladhiyaaye in la baahiyaayo la balladhiyaaye balanteenu boqolkiiba boqol buga iyo qalin lagu baratamaa sida caadadeenoo ahayd waxaan gudageli doonaa barnaamijkeenii tiknoolajiyadda hal-abuurka tiknoolajiyadda waxaan u yeedhi doonaa xubnihii guddida ahayd ee kala duwaneed ee barnaamijka qaybta muhiimka ka ahaa waxaan ugu horreysiin doonaa Professor Mubarak Ibrahim Aar oo ah guddoomiyaha guddiga isla markaasna isku-dubaridda barnaamijka waxaa kaloo u yeedhi doonaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale waxaan sida jecelahay inaan yeedho injineer Farxaan Haaruun waxaa kale oo ku soo dhaweynayaa xubnaha guddiga ee madashan kala saari doonta bulshada ardayda tartamaysa injineer Cabdirashiid Maxamed ugu dambeyntii waxaan u yeedhi doonaa xubinta ugu dambaysa guddida halkan caawa martideena waa barnaamijkana qaybta nagala qaadanaysa Dr. Cabdirashiid Maxamed haatanna ku soo dhawaada CV-ga guddida kala saaraysa tartamayaashan waa kuma Mubarak Ibrahim Aar Mubarak Ibrahim Aar waa guddoomiyaha guddida kala saarista tartamayaasha waana soo saaraha barnaamijka sidoo kalena waa guddoomiyaha jaamacadda Beder waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada masters ku qaatay software engineering taas oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Somaliland ee bixiya adeegga tiknoolajiyadda waa kuma Farxaan Aadan Haaruun Farxaan Aadan Haaruun waxa uu shahaadada masters ku haystaa cilmiga computer science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska waxa uu muddo dheer la soo shaqaynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolajiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group waa kuma Dr. Cabdirashiid Maxamed Ibrahim Dr. Cabdirashiid Maxamed Ibrahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da waana agaasimaha machadka IT-da ee
cilmi academy oo ku yaala magaalada Hargeysa waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kalena waxa uu ku shaqeeyaa la taliye dhinaca IT-da waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada masters ku qaatay culumta maamulka waa aasaasaha iyo mulkiilaha sharikada Hasi Consulting Firm ka shaqeysa tababarka cilmiga hogaaminta maamulka iyo samaynta istaraatiijiyadaha Cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxaanu hore uga soo shaqeeyay hay'adda PSI sida daawadayaal aan hore uga dhawaajay barnaamijku waxa uu marayaa meelihii ugu xisaab badnaa waa barnaamij aad u qiimo badan runtiina lagu tartamayay barnaamijyo dhinaca halabuurka tiknoolajiyadda ah oo runtii dhammaantoodba barnaamijyo qaranka iyo guud ahaanba bulshadu ay u baahan tahay barnaamijyadan caawa uu ka duwanaan doonaa maadaama ay tahay sima finalkii u dambeeyey ama quarter finalkii u dambeeyey inta ka horeysa waxaan jeclay stage waxa la mari doonaa caawa qaab ka duwan qaabkii hore ama wareegyadii hore aynu mari jirnay waxa barnaamijka marka u horeysa halkan ay kooxda u horeysa inuu yeedho halkan ay iman doonaan waxay soo bandhigi doonaan muddo 5 daqiiqo ah oo video kooban oo iyagu soo diyaariyeen ayaa halkan lagu daawan doonaa videogaasi marka uu dhamaado waxay geli doonaan si practical ah in barnaamijkooda sida uu shaqeynayna tusaan kadibna su'aalo ayaa la weydiin doonaa totalka guud waxa halka daqiiqadaha ku bixi doonaa su'aalahaasi iyo videoga iyo dhamaanba practicalka uu sameyn doono waxa isku dhayn 17 daqiiqo oo kaliya waxaan jeclahay in qof waliba ka faa'iideysan doono marka uu dambaysa gudida ayaa markaa qiimeyn doonta mar kale ayaa gabagabada qiimeynta u dambaysa ay gudidu sameyn doonaan inuu halkan ugu yeedhi doono stage-kana dhammaanba tartamayaasha kala duwan qof walibana uu bulshada la wadaagi doono waxa uu kaga fiican yahay ka kale isagu uu ku soo baxayo waxaan jeclahay in groupka u horeeya caawan ku soo dhaweeyo oo sacabka igula soo dhaweysaan waa kooxda So Smart Solution waxaan jeclahay halkan lagu soo dhaweeyo waan idinku bogaadinayaa inaad tartanka meel muhiim ah ka soo gaadheen qaybii u dambeysay aad timaadeen oo tartamaysaan weli waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysataan halkan waxaan jeclahay inaad igula wadaagtaan videogii koobnaad ay hayseen iyo sidoo kale practicalkii inaad soo u qabataan si la taaban karo oo la arki karo adeegii aad sameynayseen bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed Cabdiraxmaan waxaan nahay teamkii So Smart Solutions anigii Maxamed Axmed maanta waxaan joognaa xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo shahaadooyinka waxaan la joognaa gudoomiye Sacad qaybta xafiiska tiknoolajiyadda imtixaanaadka iyo shahaadooyinka waxaan noo farxad ah maanta insha Allah anagoo dhalinyarada wadanka ah in aanu la wadaagno xafiiskeenii qaranka barnaamij aan sameynay oo ku saabsanaa imtixaanaadka iyo shahaadooyinka kaasoo tartan adag aan u soo galnay oo wasaaradda tiknoolajiyadda iyo isgaarsiintu maalmaha ka waday caasimadda Hargeysa barnaamijkan wuxuu khuseeyaa imtixaanaadka iyo shahaadooyinka Somaliland kaasoo ka caawin doona ardayda reer Somaliland inay si fudud imtixaankooda ku eegtaan online isla markaana xagga arminka iyo maamulka imtixaanaadkan uu ka caawin doono shahaadooyinka iyo imtixaanaadkii la soo abuurgareeyay iyo in la maamulo la ilaaliyo oo xog badan garanaysa la isticmaalo iyo waxyaabo fara badan oo la sii garanaysa la sii kordhin karayo marka maanta farxad bay noo tahay runtii waana ku mahadsanyihiin gudoomiye Sacad iyo teamkiisuba inay soo dhaweeyaan oo runtii dhiirigeliyaan wasaaradda tiknoolajiyadda iyo isgaarsiintuna aad bay mahadsantahay iyaduna inay runtii dadaalka badan gelisay si dhalinyarta wadanku ay iyaguna wadankooda wax u gaarsiiyaan wax u kordhiyaan bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay waa mahadle magacaygu waa Sacad Cabdi Xasan waxaan ka tirsanahay shaqaalaha xafiiska imtixaanaadka waxaan ahay maamulaha qaybta xogta iyo tiknoolajiyadda waxaa maanta nala jooga wasaaradda isgaarsiinta oo maalmaha bowday tartan ka curinta iyo halabuurka tiknoolajiyadda ee dhalinyarada Somaliland oo ah barnaamij aad u qiimo badan in dhalinyarada la soo saaro halabuurkooda iyo curintooda qaybta tiknoolajiyadda waan taageersanahay waan soo dhaweynaynaa waan uga mahad celinaynaa siyaasad ahaan dawladda iyo wasaaradaba waan u mahad celinaynaa waxaa nala jooga group ka mid ah groupyadii tartamayay tartanku muddo kale soo qaatay 4 group ee u dambeeyay waxaa nala jooga groupka la yiraahdo So Smart Solutions oo ay ka socdaan Cabdicasiis iyo Maxamed waxay noo soo bandhigeen barnaamij aad iyo aad u qiimo badan aad arkayso dhalinyarada Somaliland halkay aqoontoodu gaarsiisan tahay ana dareemi karaysa inay level kale iyo taagan yihiin aad u sareeya wallahi runtii erayaan ku qiyaasna garan mayno ragaasi muddada ay haysteen iyo application-ka ay noola yimaadeen imtixaanaadka iyo solution-ka ay sameynayaan waa solution macquula
oo gaarsiisan heer kasta oo aqooneed looga baahnaa waanu dhiirigelinaynaa waanu taageersannahay waxaanu tuseenna waan ku qanacsannahay inay xal ka tahay problemska dalka haysta waxaan kaloo weliba bogaadinayaa in dhalinyarta la bogaadiyo oo ninka waddanka u dhashay mar walba laga horreysiiyo qofka ajaanibka tusaale yaroo fudud haddaynu soo qaadano teknolojiyadda inta badan wasaaradaheena iyo hay-adaha dawladda waa macaamil baynu leenahay hay-ado wax naga caawiya xilli aynaan aqoontiinu halkan gaarsiisnayn laakiin waxaan isleeyahay iminka waxaanu taagannahay halkii aynu inagu local talentiska aynu adeegsan lahayn haddaynu applications iyo softwares dibadda kasoo iibsano ama aynu cid dibaddii noo keento kama duwana ninkii bariiska beeri kari waaye iron bariis soo iibinaya ama kalluunkii dalka dihina yaalla qasaacad keenaya kama duwana sidoo kale waxay kaga sii duwan tahayba teknolojiyaddu ninka dibadda application ama software solution lagu soo sameeyey banaanka kuu keena waa nin dee gaari bilaa spare bara kuu keenay gaari qaaliya oo BMW 2020 haddaad Hargeysa la timaado ama Somaliland oo ilay kaa jabto dee isagoo jaban u baad wadanay marka waan dhiirigelinaynaa in local talentiska la isticmaalo wixii awooddeeda waanu soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaynaa waana u mahad celinayaa ilaahay mahadnaq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijka tartanka hal-abuurka ee tiknoolajiyadda 2021 waxaa iska kaashaday islamarkaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta ee tiknoolajiyadda ee Somaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank Smart Solution waxay soo bandhigeen fiidiyowgooda waxaa si degdeg u raacin doona qaybta practicalka ahayd iyo ka faa'iideysanaya waqtiga kooban ay haystaan bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waan salaamayaa waqtigan ugu yar waan gudagelayaa habeenkii hore soo bandhignay systemkaygu wuxuu qaabilsan yahay xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka qaranka wuxuuna xooga saarayaa qaybta ardaydu imtixaanka risatiga kala socon lahaayeen oo hab casriya loo sameeyey oo runtii secure ah oo flat ah oo responsive ah iyo qaybtii adminka ahayd ee imtixaanaadka laga soo gelinayay laga maamulayay jaamacadu kala soconayeen ardayda sanad kasta baxday iyo macluumaad kale marka qaybtan aniga hore soo sheegnay kolay maamulku way arkeen waa qayb lagu talagalay in ardaydu ka eegan karayaan imtixaanka iyagoo mobilkooda isticmaalaya aan u baahnay wax application oo ay tahay responsive oo hab casri oo maanta dunidu ay u guuraysaa weeyaan marka haddii aan tijaabiyo kooban ku sameeyo secondary-ga oo ardaygu dhaho secondary baan ahay isagoo waliba hubin karaya shahaadadiisii dugsiga sare verification ku samayn karaya waxaan ku horeynayaa hadduu arday dugsi sare yahay oo ku dhufto batanka ugu horeeya ee dugsiga sare oo doorto waxaa u soo baxaya meel uu ka gelin karayo roll numberkiisii markuu roll numberkiisa geliyo haddii roll numberkiisa aan geliyo waxaa u soo baxaysa natiijadiisii oo dhammaystiran macluumaadkiisii iyo imtixaanaadkii wuxuu u keenay si hab casriya oo responsive oo mobile application camal u shaqeynaya marka habkaas kale imtixaanku geen kara macluumaadkiisina waka imtixaanaadku wuxuu keenay celceliskiisii gradeku wuxuu keenay iyo dhammaan kaas waa habka kooban ee ardaygu uu ka eegan karayo imtixaanaadkiisa sidoo kale shahaadooyinkii verification buu ku samayn karayaa oo hadduu isdhaho shahaadadu hubi wuxuu samayn karayaa homekii dib ugu noqonayaa home buu ku dhufanayaa markuu home ugu dhufto oo uu eego oo dhaho hubi shahaado dugsi sare ah waan hubinayaa wuxuu isna haystaa choice kale oo ah inuu ku sameeyo certificate numberkii hadduu garanayo oo kale inuu geliyo haddii uu certificate numberkii uuna garanahayn inuu roll numberkii geliyo labadaba uu ugu shaqeynaya uu soo baxayaa oo uu ku raasin karayaa kaas waa habka ardayga habkan kale ee adminka isna wuxuu sameynayaa waa macluumaad aad u fara badan waxaan kusoo koobaynaa isaga qaybo kale oo kusoo kordhinay iyo in ardayda la diiwaangeliyo dugsiga sare ah dugsiga dhexe la diiwaangeliyo halkan laga diiwaangelinaya ardayda dugsiga sare haddaan ku dhufto waa lasoo import garayn karayaa waana lasoo magaranaysaayey manualna waa loo diiwaangelin karayaa waxaan kaloo ku soo darnay haddaan eegno qaybta reportska inay wasaaraddu ama ay arki karayaan maamulku by charts ku arki karayaan ardayda baastay ardayda ka qayb qaatay imtixaanaadka sanad kastaba by gender u arki karaya lab iyo dhadig sidoo kale wixii gudbay wixii hadhay ay arki karayaan iyagoo reportka isticmaalaya sidoo kale waxay isticmaali karayaan oo arki karayaan heerka kororka sanad kasta ka qayb gasha ardayda reer Somaliland imtixaanaadka ka soo qaadba sanadkan dugsigan 2019-20 waxaa ka qayb galay 22 arday oo dugsi sare ah totalkoodu sanadba sanad ka dambeeya
wuu sii xisaabinayaa kororka ardayda si ay kala sarreeyaan ama u kala hooseeyaan markaan imtixaanka soo gudbino ardayda diiwaangelino haddii aan tijaabino diiwaangelinta oo aan kan iska saarno oo dhahno soo import garee ardayda sidii habeenkii hore aad guddidu aragtay waan soo import gareynaynaa arday baan soo import gareynaynaa marka wuxuu kusiinayaa brief page kutusaya in waxa isku match garaysan yihiin oo loogu talagalay inay maamulku day isticmaalaan oo ay ka hubiyaan in xogtu sax tahay marka waan import gareynaynaa processing buu ku sameynayaa marka wuxuu kuu sheegaya recordada uu xareeyey oo la update gareeyey marka marka ardayda diiwaangelisid waxaan sidoo kale sameynay marka imtixaanka la soo upload gareynayo waxaan relation ka dhaxaysiinay tableka studentiga iyo imtixaanaadka haddii markaan ardayga diiwaangeliyo oo aan jaamac ku diiwaangeliyo oo markaan imtixaanka soo gelinayo roll numberkaas uu faarax noqdo automatically tablekii studentiga wuxuu ka soo akhrisanaya magacii saxda ahaa imtixaanaadka marka la soo upload gareynayo ee aad soo gelinaysa hadduu magacu khaldan yahay roll numberkii wuxuu ka raadinaya studentskii la soo diiwaangeliyey kabacdi relation baa ka dhexeeya macnaa magacii automatic buu saxaya oo magacii kaama khaldamayo si aan uga taxadarno inuu riski badan yimaado oo magacu qof ka khaldamo oo roll numberkii magacu isdaba maraan haddii roll numberku khaldan yahayna imtixaanku ma saarayo wax result ku saaraya ma jirto haddii aan eegno uploadiska haddaan eegno dugsiga sare dugsiga dhexe weeye kan dugsiga sare aan eegno mid kale ku jira aan iska delete gareyna kanna si aan usoo import gareyno filterkii wuu leeyahay searchkii wuu leeyahay deletekii wuu leeyahay editkii wuu leeyahay macluumaadku dhammaystiran buu leeyahay isagana soo import gareynaynaa kan soo import gareyno excel simple si simple loo soo upload gareynayaa looma baahna in manual loo geliyo haddii laga maaran waayo un baa la isticmaalayaa marka qaar marka isagana brief page buu siinayaa waan soo import gareysanayaa haddaba waxaan tegayaa qaybtan resultska automatically wuxuu xisaabinayaa ardaygu wuxuu haystay total buu haystay xagga haddaan eegno markiska total buu haystaa markiskii la isku wada geeyey imtixaanka resultiga marka la tago wuxuu sheegayaa ardaygaasi gradeka uu haystay averageka uu haystay ayuu automatically u xisaabinayaa ardaygaasu totalkiisa iyadoo la eegayo inuu baasay inuu dhacay haddii loo baahan yahay in la raadiyo ardada b keentay oo keliya ee gobolka Maroodi Jeex oo kale ama Ceeri Gaabo oo kale regionkan dooranayaa waxaan leeyahay Ceeri Gaabo ma ku jirta halkan sanad ba ku jirta gradekoodana b keentay oo kale oo keliya u baahanahay hadaan dhahno aan bal raadino inuu ku jiraan yeen kale muxuu sameynayaa ardada sana keliya oo b-da keentay oo markaa celceliskooduna ka yahay ayuu ku saarayaa oo keliya haddaan eegno verification certificate-ka oo dugsiga sare aan tagno wuxuu saarayaa arday kasta gobolku ahaa macluumaadkiisii oo shahaadadii loogu talagalay in hadhow loo diyaariyo magaca hooyadii iskuulka uu dhigan jiray iyo macluumaadkii kale oo magaranaysa ayay ku saabsan arday kastaana hal sheet oo gaar ah buu diyaarinayaa inta kusoo gabagabeynaya kullu fara badan yahay waqtigu nagu yar yahay laakiin macluumaadka guud aad baan ku idii bogaadinaya kooxda soo smart solution waxaad ka faa'iidaysatay qaybo ka mid ah waqtigaagii 17 daqiiqaad isticmaal su'aalahaaga waa tahay daawadayaal waxaan jecelahay inuu ku guda jirno barnaamijka xisaabana tartanka halaburka tiknoolajiyada sanadka 2021 oo ay soo qabaqaabisay isla markaasina ay maalgelisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxaan jecelahay qiimeyntii koobaad bal inaan marno isla markaasina xubnaha guddiga aan qiimeyntii koobaad u weydiiyo waxaan jecelahay soo smart oo halkan barnaamij qiimado ku soo badhitay qiimeeytooda u horeysay inaan weydiiyo waxaan ka bilaabi doonaa Cabdiraxmaan Ali Xirsi Buraale so smart solution qiimeynta koowaad waxaan siiyey 60 waa tahay waxaan jecelahay inaan weydiiyo qiimeynta soo smart uu sameeyey engineer Farxaan Haruun Farxaan maxaad markaad aragtay qiimeyntii ama wajiga bandhigoodii hore iyo practicalkii videoyada ay sameeyeen maxaad ku qiimeysay qolada soo smart qiimeynta koowaad waxaan siiyey 60 waa tahay waxaan u gudbi doonaa engineer Cabdirashiid Maxamed oo jecelahay inaan weydiiyo bal qiimeyntiisii u horeysay oo ku qiimeeyay kooxda soo smart qiimeynta koowaad groupka soo smart waxaan siiyey 60 ugu dambeyntii kooxda soo smart waxaan jecelahay qiimeynta bandhigoodii horeeyay ay sameeyeen in aan u weydiiyo Dr. Aydruus maxaad siisay markaad aragtay qaabkii ay u soo bandhigeen iyo bandhigooda u horeeyay maxaa kaaga baxay
kooxda ama tiimka soo smart waxaan siiyey 950. waxaan jeclahay iminka idii kala baxo idinkii guddiga macluumaadkaa soo bandhigtay iyo videoga iyo dhammaanba wixii su-aal ay ku hayaan ayaan jeclahay idinku wareejiyo ay su-aasha koowaad ilaa xilligiisa ugu keen dambeysay wax isbedelood systemka ku samaysan ma jira qaybta chartska reportska ayaad ku soo kordhisay marka ma idea ka timi guddidaad kala baxdeen baa may idea maanta guddiga aan u tagnay qoladan idea waxaan kala baxnay qaybtiinan qaybta SMS-ka iyadoo waa hawsheeda ku jirnaa Idris Samay magacay injineerka way noo socotaa hawsheedii fikrado kale oo ay kala baxnay lafteeda way jirtaayo aan diiwaan gashanay iyada laftigeeda maanta qolada aan u tagnay fikradayn ugu kordhiyay iyadana waa wadnaa laakiin qaybtan maalinta hore chartska ayaan u talagalay inaan nugu jirtay inaan ku soo korin waa su-aasheeda labaad systemku ma awoodaya inuu ilaaliyo duplicates inay dhacaan oo laba roll number oo isku mid yihiin ma geli karayaan laba roll number duplicate ku ilaalinaya maxaa dhacaya iminka laba arday dee ardayga waa run imtixaanka waa loo baahan yahay mar labaad jeer dhowr jeer uu soo geli karayaa iminka dee arday markii imtixaankiisa la xareynayo dugsiga sare haddii hal mar la geliyo dee mar labaad ID-ga lama rabo in la qaato hor markaa in la qaato mar labaadka muxuu sameynaya haddii tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay waa la haystaa kan ka soo qaad batch file baad upload garanaysaa waa Excel file waa CSV waa XML whatever the format is ma laga yaabaa laba imtixaanaad mar wada geliso may ka soo qaad kii hore isagoo socda maybe 10,000 students ayuu go'ay mar labaad baa lagu celinaya maybe qaar ka mid hore u galeen qaar may gelin see wada manage garanaysaan kulley marka wax la upload garanayo waxaa fiican in la hayo filters in la filter gareeyo ka soo qaad waxaan diiwaan gelinayay oo upload gareynayay 20 sanadka 2021 academic yearkaas waan geliyay isagoo meel dhex marayo go'ay waxaan doonayaa mar labaad in intii horena aan ka saaro kabacdi mar labaad si wacan aan upload gareeyo filter baan tegayaa waxaan dooranayaa 2021 yana intii gaarka ahayd hadda aan diiwaan geliyay isu saaraya waan filter garanaya intaan marka la soo baxo iska delete garanaya kabacdi baan soo upload garanaya maybe inaad samayn kartaanba inuu systemku uu smart noqdo uu yiraahdo okay kuwan horaan u hayay wixii aanan hayn un baan ka aqbalaya wixii dambe halaftiidu maybe waa idead ka faa'iideysan kartaan imisa format buu aqbali karaya tusaale Excel waynu garanay CSV XML oo kale ka hor Access XML su-aasheeda ugu dambaysa waxaa laga yaabaa iskuulladu inay leeyihiin system iyagu ay leeyihiin sax marka instead of ay Excel iyo idiin soo diri lahaayeen in aad through API isugu xidhaan isticmaalo taa qudheeda ma ka fikirtay waa aad iyo aad wataas waxaan kala baxnay injineerka aminka dhawaato oo fikradan diiwaan gashanay waana qodobka ugu weyn ee aan doonayo inaanu record ku sameeyno insha Allah dhalinyarada reer Soomaaliland imtixaanaadka la fariisiyo isla markaana iskuuladii oo system kale isticmaalayaan inaan API isticmaalno oo halka xogti isugu xidhno waa rajada ugu weyn aan leenahay insha Allah injineerka kala baxnay su'aal baan ku weydiinay horta soo smart waa maasantiin dadaalka wadaan anigu su-aasheedu waxa weeyaan waa mid masiiri weeyaan meesha loo socdaa waxa weeyaan at the end of the day inay isticmaasho systemkaaga soo ma sax mas-uulkii wasaaraddu hadlayay hadalka si fiican baan dhegeysta sax laakiin wax ballan qaado oo ah inuu systemkaaga isticmaalayo hadalkiisa kuma jiro marka xageed geynaysan systemka way noo ballan qaaday runtii wayna soo dhaweeyeen wayna la joogeen guddidii maanta si fiican waana u baahan yihiin runtii si sheegeen anagu been iska sheegi mayno baahi weyn baa loo qabaa in barnaamijkan casriga ah la isticmaalo runtii aad bay ugu baahan yihiin wayna soo dhaweeyeen wayna la shaqeynaa bay dhaheen haddaad noo keentaana waad soo guulaysataana waa barnaamij runtii dee aanu dhiirigelinna bay dhaheen marka dee kolley anigu waxaan aaminsanahay dee noo ballan qaadeen maanta oo ay runtii aad la soo dhaweeyeen oo ay u baahan yihiin runtii aynay laftigooda la yaab ku noqotay dhalinyarada reer Somaliland inay barnaamijyada noocan ah samayn karayaan ay la yaab ku noqotay oo de markii hore ay aaminsanaayeen in meelka laga kelin waayahay waxaan su'aal baan weydiinaya daba socota su'aasha Dr. Idris idin weydiiyey kulankiina maanta aad la yeelateen waaxda imtixaanaadka sidee ayay u arkeen barnaamijkiina inuu uga jawaabayo baahidoodii maadaama de systemkiina loogu talagalay iyagu ku shaqeeyaan sidee buu ugu shaqeynayaa xaaladda rasmiga ah ee ama shaqada xafiiska taala de waa run marka system meel la geeyo waa loo baahan yahay in la isweydiiyo sida uu la shaqeynaya de waxaan samayn doonaa insha Allah horta marka systemka meesha la geeyo
in dee la eego dhaatadii hore kabacdi dee la excel gareeyo si dee magaran systemkii lagu upload gareeyo oo loo magaranaysa loo xogta loo xareeyo wuxuu la shaqeynayaa haddii tusaale ahaan oo kale system hore jiray in backup laga qaado dhaatadii maadaama haddii SQL isticmaalayo waa la convert garan karaa laftigiisa hadduu MySQL isticmaalayana dee waa si MySQL bay isticmaalayaan marka taana waa la isticmaali karaa in dhaatadii database inta la isticmaalo soo qaado backup in lagu match gareeyo oo dee troubleshoot la sameeyo ama in Excel file laga dhigo si oo la isku habeeyo bacdina xogtii oo dhameystiran lagu wareejiyo kan okay mar labaad inaad ku soo noqotaan tartanka aad baan idinku hambalyeynaya ka wada tartamaysaanba guula waan idin rajeynayaa barnaamijku runtii waa barnaamij aad u qiimo badan oo macno weyn ku fadhiya su-aashaan idin weydiinaya waxa weeyaan mar labaad ma commercialize garan karta yani ma ka dhigi kartaan wax iib gelaya mise waa barnaamij intaad xafiiska imtixaanaadka u dhiibtaan hadday hirgeliyaanna ha hirgeliyeen haddii kalena halkaasaan ka baxaynaa mise waa wax aad ilaashanaysaan oo fikirkiini ah oo sideed yani u sii wadaysaan way horta waa su'aal fiican runtii qiimo badan de haddiina la aqbalo alxamdulilah rabbil caalamiin oo de waa guul weyn weeyaan inaan maanta anagoo dhalinyartii ah inaan imtixaanaadkii qaranka iyo hab casriya aan u samaynay oon gudbino inaan horta ku wareejino oo ay saa ku hayaan iyaguna waa yeelnaa maadaama tay say yeelaysaan inaan la shaqeyno oo dee ilaa inta horta lala fadhiisinayo inaan la habeeno oo la hayno oo la magaranaysa implementation la sameyno oo hawshii la wadana dee way naga mudan yihiin waana sii wadi karnaayo dee runtii rajo fiican baan ka qabnaa maya idinka ma isku mid bay idin tahay in laydinkala wareego oo halkaa ka baxdaan iyo inaad barnaamijkii ahaataan cidda rangaraynaysa idinka oo markaa olog la ama la jira wasaaraddii ama examination boardkii waa sukayn waayo solutionkani ma anfacayo keliya Somaliland oo keliya waa run meelaha dhan ka iibi kartaa marka haddaad diyaar u tihiin inaad iska dhiibtaan yani maskax ganacsiga kuma jirto soo ma ma jirto maadaama aan ugu talagalnay macnaha in laga sii ganacsado oo meelka laga iibiyo haddii uu successful noqdo imtixaanaadka laga iibiyo kale inuu isaga ku koobnaadaan jecel lahay anagu oo halkaa ku isticmaalaan oo ay haystaan oo wax dadka dheeraadaan ay noqoto oo maamulka dheeraadaan ay noqoto waxaan rajada aan leenahay weeyaan su-aasheeda ugu dambaysa horena malaa waa laydin weydiiyey data badan baa meesha ku jirta oo information aad u fara badan waxaasoo informationa xaggee lagu kaydinaya waxaa lagu kaydinayaa haddii wasaaraddu servers isticmaasho serverada unbaa lagu kaydinaya haddii kalena ay isticmaalayeen subscription oo meelo iibsadeen oo online ay jirtana halkeedii unbaa dee ma daraasaysen inay isticmaalaan iyo capacity-ga uu imika leeyahay waxani iyo culayska uu soo kordhinayo barnaamijkiinani marka la isticmaalo gaabka u dhaxeeya yani wax intee leeg bay u baahan yihiin inay soo iibsadaan si storage-ka ay ma walba dhiib maanta chance saa u badan islamana helin oo barnaamijkan aad socday oo laakiinse qasab way u baahanayaan dee in discussion lagu sameeyo serverada isticmaali doonaan anigu waxaan jeclahay in wasaaraddu serverro gaara iyo arrimo magaranaysaa aad u wanaagsan xagga security-kan u wanaagsan inay isticmaalaan laakiinse kolley waa arrinta alla in lagala sheekaysto daatadoodii meesha u taallay iyo magaranaysaa in lasoo wareejiyo oo systemka lagu wareejiyo markaana implementationka lagu sameeyo oo la bedelo waay su-aal kale haddaan ku soo noqdo systemka miyaad ku samayseen waxa la yidhahdo load testing miyaad ogtihiin imise kun oo arday ama imtixaan ayuu aqbali karaya maad samayseen load testing ma samaynin oo dee maadaama testing local aan ku wadno waxaan is idhi kolley data badan oo xoog fara badan mana gelin oo dee maadaama local yahay waxaan tijaabinay inuu dee boqolaal arday inaan ku gorno oo tijaabino laakiin weli loadingkii caadiga in la tijaabiyo oo kumanaan kun uu qaadi karayo waa aaminsanaya laakiin weli mana tijaabin maybe inaad excel file ku jiido qof isku mid ah hal milyan oo transaction dabeedna aad loadka sii eegto kaas waa mid su-aasha labaad waxa weeyaan haddiiba ay dhacdo wasaaraddu inay tiraahdo raalli ahaada maxaa baa ka balaan idiin ah xaggee kale maxaad kale projecti kalood haysaan ma jiraan
wax mashaariic oo kale inay software way jiraan mashaariic kala develop garan way jiraan mana la wadaagi karsan maxaa kamid ah university management baa kamid ah waxa kamid ah image center isbitaalada image center-ka lagu talagalay kan banahaynaa oo sameynay runtii waxaa kaloo kamid ah water management system meelaha lagu talagalay wakaaladaha iyo waxaas marka niman system-kan oo kaliya ku tiirsan ma tiidin ma nihin xagga database-ka yaa idin ah database expert DBA yaa idin ah yaa database-kan qaadkiisa in la fine tune gareeyo performance-giisu u shaqeynaya maadaama loads and loads of data lagu gori doono maxamed okay mahadsanti aad baan u hambalyeynaya isla markaana aan u bogaadinaya kooxda So Smart Solution waxay ka jawaabeen su'aalahoodii kala duwanaa iyo barnaamijkii bandhiga ay sameynayeen waa tahay daawadayaal waxaan filayaa in ay aad idin xiiso geliyaan barnaamijyada iyo halabuurka ay la yimaadeen dhalinyartaasi oo isku hawlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen barnaamijka xiisaha badan ay iska kaashadeen wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda iyo sidoo kale bangiga caalamiga Premier Bank iyadoo barnaamijka qayb ka hayeen xubnaha aqoon-yahanka guddida ee madasha fadhiya oo gudoominaya isla markaasina hormuudka ka yahay Professor Mubarak Ibrahim Aar waxa kale oo mahadnaqay xubnaha golaha guddiga ee madasha fadhiya barnaamij kale oo xiisamada kan la mid ah koorinta ku kulma dhamaantii waxaad ku dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaa